Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan cid walba goor ayay u tahay inkastay aniga habeenii tahay indhoweyto waanu kala baadiyownay mashquul aniga isoo galay awgeed waana idinka raali gelinaya in barnaamijyadii ka bixi jiray kanaalka hoyga bulshada ay ku yimaadeen dibudhac yar kusoo dhowaada mowduucan oo maanta oo dhammaystiran. saaxiibayaal waxaan idinku bishaaraynaynaa inaannu bartan idiin soo golin doono barnaamijyo taxana ah oo toddobaadkiiba laba barnaamij ama laba mowduuc oo macquula idiin soo gelin doono. fadlan haddii aad janalkeenna hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada. waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. gabar ingiriis ah oo 26 sano jir ah ayaa guursatay roog kadib xiriir jacayl oo u socday muddo ka badan 1 sano. cajiib. haddaba maxay tahay sababta ay u guursatay rooggan maadaama aynan macquul ahayn ayse uga dan leedahay ku daawada gabadh u dhalatay ingiriiska oo magaceeda la yidhaahda Baki Koka ayaa samaysatay wax aan macquul sinaba u noqonayn balse iyadu ay ku faraxsan tahay. halkudhiga jacaylka ma garanayo wax aan ugu magac daro sheeko jacayl ayaa kala dhex gashay iyada iyo rooggeeda. gabar ingiriis ah oo la yidhaahdo sidaan horeba idinku sheegay Baki Koka oo rooggan loo caleema saaray inay guursato xiriir jacaylna la samaysato ayaa markii ay iibsatay rooggan waxaa kala dhex dhacay jacayl aan inaba caadi ahayn. talow jacaylku waa noocma cajiib. bal sheekada aanu sii soconno. sheekada jacaylka u dhaxaysa gabadhan ingiriiska ah ee 26 sano jirka ah iyo rooggeeda ayaa jacaylkeeda waxay bilaamatay sanad ka hor guur hadda dhacay. qaar ka mid a asxaabteeda ayaa kula taliyey inay rooggan ay in badan isjeclaayeen ay haddana guursato. warmalaha saaxiibadaasi jarbay ka tuureen gabadha. sida laga soo xigtay wargeyska sun kasoo baxay Spain gabadhan ingiriiska ah mar uu la hadlay waxay u sheegtay inay ka shaqeyso Manchester City iyadoo dhammaystirtay nidaamka guurka maalmo ka hor kadib talo uga timid asxaabteeda inay guursato rooggan. talo magaceebaan ugu yeedhaa roogga mise rooggeeda. waxaan ugu yeedhanaa rooggeeda. durbadiinma way gashatay aroos ayayna dharkii cadaanka ayayna xidhatay waxayna isu diyaarisay xafladii arooskeeda. kook waa cajiib. waa magaca ay ugu magac dartayna rooggeeda waa maat. haddaba roogteeda hadaladii waxay ka tiri munaasabadda xafladeeda wuu i qalmaa maat maadaama had iyo jeer aan la jiifsado isagoo oo aan kala sheekaysto fikradahayga iyo fikradaha mustaqbalka. mar walbana waan isla joognaa hadday noqoto galab habeen casar markastoon shaqada ka imaadan isagaan kusoo laabtaa. maxaa diidaya bay tiri inaan markaa guursado. waan nadiifiyaabay tiri waan dhaqaa maalin walba bacadkaan geeya waan qurxiya cadar baan ku shubaa. waxyaabahaasoo dhan ayay adeegsatay. waa waxyaabo anagu allah baan ka magan galnay. waanu bilaabi doonaa allah hadduu ka dhiga mowduucyadeenii si taxana ah bayna noogu socon doonaan insha allah. fi amaanillah saaxiibayaal.